السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa YouTube Web and TV waxaan la soo gaaray xilliyadan idinku talagalay in aan soo tabino warar waxaan idinka haynay deegaanka dalka iyo dunida inteeda kaleba. warkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah wariye xoodane. wararka aan idin haynana waxa kamid ah waxa maanta xabsiga loo taxaabay 5 xubnood oo kamid ah shaqaalaha xafiiska maaliyadda heer deegaan oo kala agaasinka waaxda xisaabaadka Axmed Wari, agaasinka khasnada dhexe Treasury-ga Naasir Aadan, logistics xafiiska maaliyadda heer deegaan Qoslaaye iyo laba xubnood oo kale. guud ahaan 5 xubnood oo si sharci darro ah loo xiray maadaama aysan jirin wax dambi ah oo ay galeen ayaa sabab looga dhigay inay kaliya ka agdhawaayeen shaqo ahaan isla markaana ay isku beel yihiin wasiirkii hore ee xafiiska maaliyadda mudane Axmed Cabdi Axmed Ilkacsi, iyadoo loo maqlay dacwad been ah oo uu ka gudbiyay wiil la yiraahdo Cabdisalaan oo ay wada shaqayn hore ka dhaxaysay xilli uu xafiiska ka ahaa khabiir balse awood u helay maanta inuu kaga argoosto. waxaa xusud mudan in toddobaadkii la soo dhaafay ay jirtay ismiran waa u dhaxeeyo gudoomiyaha xisbiga mudane Axmed Shide iyo kusimaha madaxweynaha mudane Mustafa Cagjar mana cadda ilaa hadda meel uu ku dambeeyay ismiran waagaasi. shacabka deegaanku waxay sugayaan inuu dhici doono shirweyne xisbi kaas oo si sharci ah u ansixiyaan xubnaha golaha dhexe balse shirweynihii oo gaadhay waqtigiisii ma muuqato wax u diyaar garow ah oo ku saabsan shirweynaha mana jirto in loo yeeray golaha dhexe oo laga ansixiyo in dib loo dhigo shirweynaha. haddaba waxaad moodaa in sharci darro la caadaystay ay ka muuqato meesha, sidaa darteed labadii xubnood ee ishaysigu ka dhaxeeyay ayaa ku heshiin waayay jigjiga kadibna waxaa looga yeeray Addis Ababa. wararka ka soo baxaya ayaa sheegaya in laga awood batay dowladda dhexe in Cagjar wararka naga soo gaarayo dadka ka agdhow in shidana waxay sheegayaan in dhammaan la kala diri doono dowladda in Cagjar iyadoo lagu eedeeyay inay ka buuxaan ururo kale oo aan ahayn xisbiga waqti xaadirkan deegaanka taladiisa haya. waxaana maalin dhow bilaabi doona qiimeynta golaha kabineyga kadibna waxaa loo gudbi doonaa gobolada maamul magaalooyinka degmooyinka deegaanka. Axmed Shide ayaana go'aan ku gaaray inaan shirweyne la qabanaynin inta uu jiro maamul in Cagjar dhistay oo heer deegaan, heer gobol, heer maamul magaalo iyo heer degmaba ka jira. howlahaas wixii ka soo cusboonaada kala soco Rayi Web Tube and TV. dhanka kale waxaa magaalada Jigjiga laga furay joornaalkii ugu horeeyay ee shacab leeyahay taariikhda abad markii ugu horeysay oo lagu magacaabo Jigjiga Newspaper, kaas oo la filayo inuu wax badan ka soo kordhin doono dhanka xorriyatul qowlka balse loo badinayo inuusan sii socon doonin sabab la xiriira arrimaha siyaasadda ee deegaanka maanta ka jira awgood. waxaa kale in kasoo koow oonka haraadka iyo silica baasan ee ka jira deegaanka ay soo laabatay sheekadii mooyi ee 10 sano ka hor laga soo gudbay, waxaana taas daliil u ah laba dhacdo oo aad u foolxun oo isku xigay oo ka kala dhacday magaalada Qabridahar iyo Jigjiga, iyadoo magaalada Qabridahar lagu arkay xalay wiil meyd ah oo aan la garanaynin cid dishay balse markii la isweydiiyay ay sheekadu ku soo gabagabowday mooji cid dishay. sidoo kale magaalada Jigjiga gaar ahaan xaafadda Ayardaga ayaa lagu arkay wiil xarig ku daldalan oo aan isna la garanaynin in la daldalay iyo inuu isagu isdaldalay toona balse loo badinayo inay China groupka baryahan dambe Jigjiga ku soo badanaya ay daldaleen isna markii la isweydiiyay ay sheekadiisu ku soo dhamaatay mooyi. hay'adaha amniga u qaabilsan deegaanka kama aysan hadlin weli oo iska daa inay ka hadlaan waxaad moodaa inaysan wax weyn la ahayn dhimashada ku timid Allah u naxariistay dhalinyartan wax baaritaan ahna ma aysan samaynin oo halka ayay kiiskoodii kaga tageen. dhinaca dalkana kusimaha madaxweynaha deegaanka Tigray Dr. Debretsion Gebremichael oo warbaahinta dalka la hadlay ayaa wuxuu cambaariyay inay khalad tahay in dhaqdhaqaaqa ciidanka militariga la hor istaago. wuxuuna madaxweynuhu sheegay in ciidanka militariga uu yahay hay'ad sharci ah oo dalku leeyahay isla markaana ay khalad tahay in dhaqdhaqaaqiisa la xanibo maadaama ay mar walba u socdaan howlo shaqo oo muhiim ah. wuxuuna intaa ku daray in xilli ay shacabka Tigraygu ku andacoonayaan in sharciga la dhowro aysan suuragal ahayn in isla shacabku uu sharciga u gafo isla markaana hor istaagaan ciidan sifa sharci ah ku socda. Dr. Debretsion ayaa intaas raaciyay in heshiiska labada dal ee Eritrea iyo Ethiopia uu dan u yahay shacabka labada dal gaar ahaan shacabka deegaanka Tigray maadaama ay labada bulsho isku dhex. wuxuuna yiri waxaa muhiim ah in nabadda iyo wanaagga aan ka wada shaqeyno. Dr. Debretsion ayaa cadeeyay inaysan jirin wax cabsi ah oo laga qabo in weerar ka yimaado dhanka dalka Eritrea, wuxuuna shacabka ku booriyay inay sareynta sharciga ilaaliyaan iska daa bini'aadamka xitaa jinka waan la shaqeynaynaa, waxaa yiri Dr. Debretsion Gebremichael madaxweynaha deegaanka Tigray. madaxweynuhu sidoo kale xusay inuusan marnaba ogolaanaynin in lagu kaco tallaabooyin sharciga ka dhan ku ah, wuxuuna sheegay in dhalinyaradu ka taxadaraan tallaabooyinka ay qaadayaan balse arrintan ayaa ah mid afka baarkiisa ah iyo deel siyaasadeed oo la wada ciyaarayo isagaa diray isagii baana daminaya. sheekadu damin ma ah ee waa baraarujin dhalinyarta Tigray tusinaysa inay guul gaareen waana waxay isku og yihiin.
waxaa intaa dheer in maanta goobaha ay nuweerku degaan lagu qabtay hub sharci darro ah oo isugu jiray 37 qori oo AK-47 hal BKM iyo qasabadaha rasaasta. halkaas waxaa ku dhan warar waxaan deegaanka dalka iyo dibadda idinka haynay. waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo xiiso leh.